Asalaamu calaykum akhyaarta GN Trades. Maanta ku soo dhawaada sharxaada what makes a trader successful. Kani waxa weeyaan is the trader paradox. Maxaa sababay that 90% dadka markasta soo gala is deemed a losers? Waa guarantee 10 qof hadday meesha soo galayaan 9% waxaa la hubaa they're gonna lose to the market, and only 10% in ka yar only are successful. Taasina waa su'aal mudan in la isweydiiyo. What is the reason the 10% are hiding? Maxay haystaan that the 90% of majority of people don't know ama market aanay ka ogaan? And how to reset your thoughts iyo afkaartaada sa dib ugu dhigi lahayd oo aad u fikiri lahayd the 10% are not the 90%. Haddaad aragtid the 90% of traders, majority of them waxay wadaagaan isku dhaqan bay wadaagaan, isku dareen bay wadaagaan, almost waad arki kartaaba. It's very easy, anigoo kale I can easily see the 90%ka oo dadku waxay u malaynayaan inay tahay intelligence-ka, inay tahay in marketka ay ku xidhan tahay ama in nasiib ay ku xidhan tahay. Laakiin the thing is the 90% waxayna isweydiinin waxa weeyaan malaha waa mindset, and nothing of those above ayaa ku shaqo leh san u trade gareynayo. Sababtoo ah badankoogu waxay ku socdaan prediction, waa iska saadaalin that has absolutely no basis. Waxa weeyaan waa dareen, as they say, it is feelings that the market is gonna go up because maanta kor u socday, so it has to keep going up. Anna taasan dareemaya, I'm gonna put my money on it. Qofku lacagtii uu soo dhididay ayuu marketka iska gelinayaa just based of solely one thing oo ah prediction. Laakiin on the other coin, haddaad aragtid qofka kale haddaad weydiisid why ayaad hadda u riixaysaa badhada ama aanad u riixeen, isna wuxuu ku sheegayaa de waa discipline iyo probability iyo sababo kaloo fara badan oo cilmiyeysan, instead of just feelings iyo dareen iyo in la dareemayo de in guushaada ay ku xidhan tahay every single trade waa mid qiimo ku leh oo kaa dhigaysa success ama kaa dhigaysa unsuccessful. So that's the difference, where the 10% successkooga kuma xidhan a singular trade, where the 90% one singular trade ayaa shakhsiyadooda ay ku xidhayaan oo ay leeyihiin haddaan hadda guulaysto macnaheedu waxa weeyaan qof markasta guulaysanahay. If I lose now, I'm a loser. While the other personka 10% kuna wuxuu leeyahay was just another day, waa business kale. Haddaan badiyo haddaanan badinin shaqo iyo farqi ma sameynayso, maalinta ku xigta umaan saarkanaa marketka. Iyo mid kaloo ku tusinaysa inay khurufaad tahay that you need a high win ratio oo tan ah. Dadku waxay badankaa ana ila yaabaan markaan ku idhaahdo 50% or less even you can make money. oo aan ku idhaahdo dadku waxay leeyihiin I want to get to 80% win ratio, 70% win ratio. Anna waxaan leeyahay ninkani qofkani xaguu ku nool yahay that they are so super accurate-ka. Way dhici kartaa, laakiin markaa waxay noqonaysaa inaad sii noqotid very selective with your trades, very selective, inaad malaha bishiiba hal trade qaadatidba, or even labadii biloodba laba trade qaadatid or one trade. Laakiin haddaad yara eegtid traderayaasha ugu fiican oo aragtid spreadsheet-kooga, majority of them waa 60% or less. Adu waa between 55 iyo 60 ayay marayaan, qaar baa 63, 64. Laakiin win ratio-hoogu it's not 67, it's not 70, it's not 80, it's not 90, or 55, between 55 to 65. Hadda qofka kale caadiga wuxuu oranayaa wuba yesaya, wuxuu oranayaa no, I'm not gonna do 55% win ratio, waxaan u baahanay 80 because that's the only way aan lacag ku shaqeynay. Qofkan waxaan ku leeyahay waxba ma garanaysid, because risk management kay meesha ka saarayaan
oo muhiimadda maxay saarayaan win rate-ka ayaa muhiimadooda ay saarayaan iyo riskigana meesha way ka saarayaan. waxaa oranaya risk macna ma sameynaya as long as I have a high win rate, but that's not true, because if you have bad risk management, all this win rate-ka laba trades ayaa kaa saaraya meesha, because eegintaad riskeynaysid haddoo kale waxaad riskeynaysaa $2 si aad u heshid $1. You are risking 2 for 1. That's a negative odd weeyaan. qofku ma wuxuu maleynaya in intan fiican tahay. No, this is actually very bad unless you have a high win ratio which is unsustainable. tanada ma noqon karto wax haddaad si waaqica u fikirtid. No, you ma helisid 67% win ratio with 2-1. waa ma oran karida waa impossible, but laakiinse ma aha dee maxay positive hiigsasho positive ama. The good news, warka fiican oo ah uma baahnid to make money. haddaad aragtid the big funding capitalka bankiyaasha oo kale waxaad arkaysaa in sanadkii dhan ay haystoon around 20% return bay haystaan lacagtooda. 20%, qaar waa 17%. taasna waa very success bay u tahay de, oo waa bankiyada guul bay u tahay 20%. so haddaad ka fikirsid, we actually have way higher return than the banks, way higher. laakiin sababta annaka sababo kale marka laan gudagalayo weeyaan, because bankiyadu markasta trade ma qaadan karaan oo ma heli karaan cid lacagtooda u buuxinaysa, because it's billions and billions. ta kalena waxa weeyaan risking 1 to make 1. markan waxaa tahay waa dabiici, waa neutral weeyaan. so waa 50% inaad lacagtaadii soo ceshatid. laakiin 1 to 2 you are risking $1 for 2. oddskaagu markaa wuxuu noqonayaa 33% win rate. 3% baad u baahantay inaad badiso to be a break even. haddaad tradesid 1 to 3 na 25. hadda ayaana 25% heli karin win rate. haddaad ka fikirtid, do you think this is hard inaad gaadhid this one for instance, or even this one? labadaba ka xishoon mayna. haddaad si daacad u fikirtid, to get only 33% or 25% way 1 to 2 iyo 1 to 3 ma wax kaa fog ba like this one? I must say no, this is fudayd. wallahi this is so easy weeyaan, very easy. 25% is nothing wallahi. adoo indhaha isku hayaa samayn kartaa, but that also needs inaad hiigsatid inta hoose before you can go up. You will make money with this, but you need inaad kuwan horta hiigsatid before you can go up and say 55 you waxaan rabaa 60%. you have to be fine with 20, you have to be fine with 15 ilaa intaad khibradaadu ay kordhayso. iyo ta kalena waxa weeyaan, ta kaa qayb qaadanaysa waxa weeyaan inaad aqbashid doing nothing is also a position. so markaanad go-aan qaadanin, markaanad ficil qaadanin, laakiin go-aan baad qaadatay, macnaheedu waxa weeyaan position baad ku jirtaa. maalinta tidhaahday I'm not gonna trade today because waxaad aragtaa newskaad aragtay, ama waxaad aragtay market structureku siduu yahay, aad aragtay market conditionkaad aragtay. taa in itself is a trade. waa position aad qaadatay to protect lacagtaada, capitalkaaga. dadku hadda sababtoo ah waxay iibsan karaan funding platformyada, lacagtooda saa uma sii xiise geliyaan, because waxay oranayaan $50 $100 aan gelinayaa account-kayga, dib baa loo soo furaya, I don't care, because they have this mindset of hadday haystaan one day off, they are not traders. hadda adigaan ku weydiiyey, maxaa ka fiican if you take 1 to 3 decision every single month,
say 1 to 3 decisions trades only every single month. That's very good. oo aanad u baahanayn bacdeen inaad wax samaysid, instead of being 5 times on the market. ka waran dad bishiiba aad gashid marketka only 1 to 3 times. 1 to 3 times. You make good decisions 1 to 3 times and you are off. wax kalena waa samaynaysaa, waliba saasaad oga lacag badanaysaa ka marketka ku jira 5 times a day. 5 times a day. balaakiinse inaad qaadatid position, inaad ma qaadan position, doing nothing is also a position. sababta waxaad sugaysaa high quality setup ku majgareynaya ruleskaaga, iskamana dhigisid qof wax qabanayo markasta mashquula by just pushing the button. Emotional neutrality-gana is very important key aspect, oo waa inaad marketkaad u aragtid waxaanad aad u xakameyneen oo isagu siduu doona yeelayo. Losskuna waa just another business expense. waa sida markaad safrisid, meel aad u safrisid oo ticket aad bixisid, kama qeylinaysid ticketka de, ama ticketka baska ticketkaaad qaadatay shaqada tagaysid maad ka calaacashaa, waxaad tidhahdaa ticket baan bixiyay. No, waa business expense for you to get your money. ma aha personal failure adiga shakhsiyan ah, waa just another day, another business. inaad noqoto consistent waa something that comes with time iyo system. cid trading or not trading in any endeavor, any business, anything in life, ma jirto cid nasiib ku noqotay. It takes time, it takes calculation bay qaadataa. You have to give it a time. waa inaad marketka horta baratid, and as a beginnerna waa inaad isku ogolaatid that you will fail at the beginning. waad ka dhacaysaa meesha, way kugu adkaanaysaa, waxaan fahmi maysid, but you have to be willing inaad kors ku soo qaadid oo kolba aad ku noqotid oo boardka aad ku tuntid. That's what it takes, because kuma fahmaysid 1 to 2 weeks. It's impossible weeyaan. You have to be willing inaad aqbashid mistake aad gelaysid, oo inaad cafisid, oo losseeskaaga waa inaad aqbashid, winskaagana waa inaad ka baratid. It's not a place where you can come in and just every single day master it with ease, oo marketkana si fudud aad u geli kartid isla markiiba ay ku kala kacayso. No, it takes time, it takes effort, it takes calculation, but the end it's 100% possible weeyaan. waa wax gacantaada ilaahay ka sokay adiga taada ku jira. If you put it in time, a real time oo daacad ah, khaladaadka ka baratid, manage your risk, manage your cadhadaada, manage your personal life, and in time you will see slowly that your equity curve inuu sidan u ekaan doono. bilowgoo kale waxay tahay ma haysatid blueprint ku cad ama waddo ku cad, so you are lost in the maze. waad ku dhex lunsan tahay, meesha roob baa da-aya, way qooyan tahay, waa meel wada buura. You cannot see, you are confused, because waxani waa language aanad fahansaneen, waa market aanad fahansaneen. Everything waxay kula tahay cabsi markaad kelmad kala maqashid waxaad leedahay oh my god, what is that? markaad aragtid new setup waxaad oranaysaa waxani waa wax iga fog. But in time waxaad arkaysaa wixii oo dhan oo macno kuu sameynaya, sad wadada u haysid wixii oo dhan waana kuu sameynaya. daruurihii oo cirka ka baaba'ayo oo ciidii ay soo baxayso, bacdeenna waxaad arkaysaa wadadii bridge-ka. markaad bridge-ka aad martid aad maraysid, you can see that you are on a trajectory toos ah oo confusionkii uu kaa baxay, oo wax kasta systematic tahay, and at the end you will arrive the scientist method, where wax kasta is figured out. You know the market, you have been in it for long enough, it's easy. calculation fiican aad qaadanaysaa, all the losses macno kuma sameynayo. Even if you were to lose 10%, 15% for some reason, ma warwaraysid, maalintaad uma kaa xumaanayso.
you would still enjoy it because waxaad og tahay you will get it back in time. On the mental level waxaad ka helaysaa the proven strategy, risk management, psychological discipline, and all around traderyaal oo isku wada mindset ah iyo marketkana confusion badan kaa saaraya because there's a lot of confusion in the market, especially as a intermediate or new beginner. Dadka badan kelmadaha iyo fancy ay ka dhigayaan make it overcomplicated when in reality it's not. And now I would say that the strategy is the easiest thing. The strategy is the easiest thing. dadku strategy isku wareerin is the easiest thing. Ta kale it's gonna be harder to master ama garashadeeda waa risk management and especially the psychological discipline inaad qof aad business ahaan oo la dhaqmasid trading because it is your business. It's not a hobby, ma aha gambling, khamar ma aha. That's gonna be the hardest part, while people are very obsessed over the easiest part. Waxay labada ka jeedsadaan waxa qiimaha sameynaya oo ah risk management iyo psychology-ga. Still the private mentorship is still open. January buu furmanaya. We don't have so much time for now, and the private mentorship way taasi, and the free content will be also out on the YouTube. I will still be helping people out in every way I can, but laakiin tani waxa weeyaan for those people who just wants to get to the next level. Kuwa kalena they will of course every week they will enjoy the free content. Waanigu G and Trace inshallah. I hope to see you again.